daawada ku soo dhawow qaybtii saddexaad ee barnaamijkeennii mashruucii la dagaalanka nuurka. qaybtii labaad waxay inoo joogtay. sidoo kale waxay istuseen in federaalku yahay hab aynu ku joojin karno calanka tawxiid kale ay somalilan saarteen. waxay yidhaahdeen calankaas ayaynu ku duldhisaynaa calanka buluugga. qolo xagjira ayaa ku dooday in soomaalida laga qaado xaqa aya ka tashiga oo gacanta loo geliyo qaramada midoobay ama wadamada jaarka. markuu shirkii dhammaaday waxaa la isla qaatay in soomaalida loo sameeyo nidaam federaal oo qas ku salaysan. berg ayaa si gooni ay ugu sheegay inay meel dhigteen go-aanka ah in soomaalida laga ilaaliyo laba qodob: inay soomaalidu isku maamusho shareecada islaamka, iyo kan labaad oo ah in soomaalidu yeelato dowlad dhexe oo adag. daawada ku soo dhawow qaybtii saddexaad ee barnaamijkeennii mashruucii la dagaalanka nuurka. wuxuu berg aaminsan yahay haddii soomaalidu qaadato shareecada islaamka in dhibaatooyinkooda oo dhammi ay u milmi doonaan sida cusbadu ugu milanto biyaha. sidoo kale waxay helayaan midnimo, taasina waa taas oo siinaysa quwad iyo sharaf. sideen u aqbali karnaa in dhulka khayraadka intaas la-eg inuu gacanta u galo cid naga mabda' duwan? way ku jiraan soomaalida rag leh hamiga ay ku yagleelaan dowlad dastuurkeedu yahay qur-aanka, waxaanse ka xignaa dagaal. wuxuu yidhi waxaanu nahay qoom wax akhriya oo wax dersa. qur-aanka ayaanu baadhnay, waxaanu ka helnay sir suuradda 2 aayadda 120aad, taas oo aanu kala baxnay in haddaan soomaalida ku qancino inay raacaan nidaamkayaga in ay waayayaan gargaarka iyo guusha alleh. markaannu taageerayno doorashooyinka somalilan iyo hirgelinta federaalka nagama aha jacayl ee waxay naga tahay inaannu kala dhex gallo iyaga iyo rabbigoodii u gargaari lahaa. berg wuxuu sidoo kale carabka ku dhuftay inay somalilan federaalka ku dirqin doonaan. marar dambe oo aan iskaga dab qaadayay london, hargeysa, ankara iyo nairobi ayaan ogaaday in kaaliyihii xogayaha arrimaha dibadda waaxda africa johnny carson in laga codsaday inuu madaxweyne obama ku qanciyo in somalilan lagu soo daro ciyaarta federaalka. waxaa la unkay guddi uu hogaaminayo senator donald bayne oo ah xubin ka tirsan aqalka sare ee odayada. wuxuu soo casuumay dhammaan darafyada soomaalida, waxaase shirkaasi diiday oo ku gacan saydhay madaxweynihii hore ee somalilan daahir yaale kaahin. senator bayne wuxuu shirka kaga hanjabay luuqad ka aradan diblomaasiyadda, isagoo yidhi somalilan waanu ciqaabi doonaa oo waxaanu ku sandullayn doonaa federaalka. shirkaas kadib waxaa u dusay xogayihii arrimaha dibadda ee xisbiga kulmiye doctor maxamed cabdilaahi cumar oo kulan qarsoodiya la qaatay donald bayne. markii dambe janawari 2010 waxaa washington tegay guddoomiyihii xisbiga kulmiye axmed maxamed maxamuud silaanyo. iyadoo halkaas marayso ayuu korneyl cabdilaahi yuusuf axmed BBC-da uu waraysi siiyey, isagoo silaanyo ku duray kuna eedeeyey inuu weligii aaminsanaa fikirka gooni-goosodka. wuxuu BBC u sheegay wakhtigii aan madaxda ka ahaa SSDF ayaan silaanyo oo guddoomiyihii SNM ahaa u soo jeediyey in aanu midowno. wuxuu igu yidhi silaanyo midoobi mayno oo xisaab 60kiiga khaldantay ayaan dib u saxaya. markaa ninkaas silaanyo la yidhaahdo weligiiba gooni-goosad ayuu aaminsanaa. axmed silaanyo ayaa maalintii xigtay iska difaacay idaacadda VOA isagoo leh anigu weligeyba federaal ayaan aaminsanaa oo xataa warqaddii aan federaalka ku soo jeedinayey waxaan qoray 1991 oo waa la heli karayaa. arrintaasi iyo dabaylihii silaanyo ku kacay isagoo musharax madaxweyne ahaa iyo sidii loo maareeyey ee bulshada loo jiheeyey waxaan u dhaafi doonaa taarikhyahanadii la socday xilligaasi. si kasta oo loo dadaalay haddana rabitaankii federaalku si wacan uguma hirgelin somalilan. waxaanu garan weynay waxa hortaagan. qoladayaduse waxay tuhunsan yihiin inay halkan ka taliso awood qarsoon oo tooda ka xoog iyo xeelad badan. si kedis ah ayaa la igu diray inaan hawl ka soo fuliyo kambala. waxaa la doonayay in lagu qanciyo dhallinyarta wax ka barata jaamacadaha uganda sidii ay ugu biiri lahaayeen ciidamo loo dhisayo soomaaliya. waxaan fadhiistay xaafadda soomaalidu u badan tahay ee kisenya si aan u ugaadhsado dhallinyar hanleh oo aan ciyaarta u soo geliyo. dhallinyar badan kuna niyad samayn inay fikirka ayla qaataan. si kasta oo aan ugu beer lulo museveni ku dayda isagoo dhallinyara ayuu uganda qabsaday, ma helin cidii soo dabacda. ujeedka iyo qorshuhu wuxuu ahaa in la helo 500 oo wiil ama ugu yaraan 200 oo isku aragti ah, loona leeyo saraakiil ciidan oo markii loo baahdo dalka xukunkiisa qabsan kara.
si looga sii xijaabto Shiinaha oo fara kula jira geeska Afrika, ama in uu qorshe balanbiya ugu noqdo madaxda maqaarsaarka ee Soomaalida Koonfureed haddii ay ka leexdaan jidka loo jeexay. Waxaan ka soo dhoofay anigoo ku hungoobay iskudaygaygi, inkasta oo aanan hawsha keli ku ahayn. Sidoo kale ay dadaallo kuwan la mida ay ka socdeen Jabuuti, Itoobiya iyo Suudaan. Mar dambe ayay gabadh afhayeen u ahayd wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ay shaacisay in lagu guulaystay qorshe Soomaalida loogu dhisay ciidamada xirfad leh. waxaa laygu soo hambeliyey sida hagar la'aanta ee aan u wado howlaha ururka, iyadoo laygu bushaareeyey in lay siin doono mashruuca qaybtiisii hore ay ku baxayso lacag dhan $5 milyan sanadkiiba. wuxuu socon doonaa ilaa 2022 inta laga gaadhayo 2.5 milyan. Hargeysa ayaa lagaga howlgelayaa 1.25 Muqdisho ayaa lagaga howlgelayaa iyo 1.25 milyan oo iyaduna lagaga howlgeli doono Garowe. Paul Macmillan wuxuu iga rabaa in Soomaalida laga maydho diin jacaylka. wuxuu yidhi Soomaalidu waa dad diintooda difaaca xataa iyaga oo aan ku dhaqmin. dadka dhaqankaas leh way adag tahay in laga lib keeno. mashruucu waa inuu tallaabo u tirtiraa dhaqankaasi wanaagsan. waxaanu xarumo ka furnay Hargeysa, Muqdisho iyo Garowe. dadka dhulkaas ku nool ma dareensana wax aanu la nimid, waxaanay noo soo dhoweeyeen sidii dad soo kordhiyey curin cusub. markii hore waxaanu doonay inaanu u bixinno mashruuc ammaanfur bulsho, hase yeeshee magac bixintaasi markii aanu u dirnay ururkii way nagu diideen oo waxay sheegeen inay kicin karto dad badan oo sas ka qaba soo dhoofinta wax kasta oo cusub. waxay nagula taliyeen inaanu ula baxno geediga bulshasan. waxay yidhaahdeen ereyga bulshasan ayay ku qanci doonaan oo waxay u qaadan doonaan in wanaaggooda aad wadaan. ha yeeshee qole wax isweydiin badan ayaa su-aal ka keeni doonta geediga. xaggee dadka loo raraya ayay odhan doonaan. waxaad ku tidhaahdaan xagga san. goortay ogaadaan waa mar aynu fushanay danteenna. sanadkii koowaad ayaanu qabanay hawshii u horreysay oo si weyn ayay bulshadu u soo dhoweysay. lacagta waxaa naloo soo marin jiray hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga. inta ugu badan waxaanu ka qaadan jirnay UNTB. iyagu lacagta nama siin jirin ee waxaa noo soo marin jiray shirkadaha shidaalka oo mashruucan maalgelintiisa lahaa. waxay doonayaan in bulshada loo sii bisleeyo sidii ay u aqbali lahayd khaniisnimada, qoomuluudnimada, ilxaadka iyo dhaqan kasta oo bidix. Soomaalidu dhaqannada bidix ma aqbali karaan oo dil bay ka xigaan. kaas ayaa la rabaa in la ogolaysiiyo oo ay caadi u arkaan. mar baan isidhi weydii madaxdii aan u shaqaynaya su-aal ahayd, miyaan Soomaalida lala ganacsan karin iyadoon la bedelin dhaqankooda? ma weydiin. mar dambe ayaan ogaaday inay qayb ka tahay nidaamkooda. meelna ma maalgeliyaan ilaa ay dhaqankooda dooriyaan. waxaan hoos nafta ugu sheegay malaha Shiinaha ayaa kuwan dhaama. Shiinuhu maalgelinta uu bixinayo shuruudo dhaqan kuma xidho. xagga dhismaha kaabayaasha dhaqaale iyaga uga wanaagsan Afrika marka reer galbeedka loo eego. Shiinuhu hal in ah ayuu leeyahay, taas oo ah inaanu lahayn awood ciidan oo uu ku difaaco danihiisa iyo danaha dowladaha soo dhoweysta. bal eeguun Suudaan, Nigeria iyo Itoobiya. guushaan gudaha ka gaadhnay kadib ayaa laygu soo casuumay shir ka dhacaya Nairobi. shirku wuxuu daarnaa sidii wax la isaga weydiin lahaa sirta nidaamka Somaliland oo guurtida ah, iyo sidii doorashooyinka ay guusha ka gaadheen looga faa'iidaysan lahaa inay noqoto fursad bulshada lagu qaybin karo. guurtida cadaawad weyn ayay u qabeen oo waxay aaminsan yihiin inay tahay gole lagu kala badbaaday oo nabadda ka shaqeeya. waxay soo jeediyeen in dacaayad lagu furo si marka dambe sirtooda loogu dhexal wareejiyo si fudud loona doorto sida wakiilada oo kale. waxay istuseen haddii ay taa ku guulaystaan in ay luminayaan xigmadda loo aasaasay golaha guurtida ee Somaliland. ta doorashooyinka waxay soo direen in daraasad laga sameeyo si loo abuuri karo aragti cusub oo keenaysa in beelo kala guulaystaan. Soomaalida dhexdeedana beel u adkaysan karta in laga badiyey way adag tahay. daraasadaasi waxaa maalgelisay hay-ad astaanteedu ahayd 2 qof oo iska soo horjeeda. shirka waxaan usii dhaafay London oo aan ku soo qaatay bil nasasho. markaan soo dhoofayey ayaan cagta soo geliyey xaruntii ururka. waxay igula kaftameen in Soomaalidu tahay dad adkaysi badan oo asal ah oo ay adag tahay in la bedelo.
wuxuu ii sheegay wakhtigii gumaystaha inay u yimaadeen Afrika oo inteeda badan muslim tahay, haddana si dhib yar ayaanu u doorinay. Soomaalidana dhowr qof mooye waanu ku guuldaraysanay inaanu dhaqankooda ka kaxayno.